soo dhaweynaya madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. haatan waxaa gida diyaaradaha ku sugan diyaaradii siday madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani goordhow mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ayaa halkan ku soo dhaweyn doona. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku sugan goobta. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani haatan ayaa la filayaa inuu diyaaradda ka soo dego. gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa halkan ku soo dhaweynaya. ciidamada ujeedaan waa ciidamada ilaalada gaarka ee madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. ayaa la filayaa in soo dego. waxyar kahor waxaa garoonka soo gaaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo si rasmi ah u soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. madaxweyne Dani ayaa waxa uu gacan qaadayaa madaxdii ku soo dhaweysay garoonka.
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar ترتيب حاجة مصورة بقعدين الله حق أولاد الله كيف madaxweyne ayaa weli mid u gacan qaadaya dadkii ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde international airport
muqdisho waxaa si aad loogu soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani haatan qaybta VIP-da ayaa loo sii galbinayaa محمد waxaa si rasmi ah magaalada Muqdisho u soo gaaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kuwaasi oo shir wada tashi ah la qaadan doona madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ay ku jiraan xildhibaano iyo senataro ayaa ku soo dhaweeyay gida diyaaradaha caalamiga aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaana tabinta tooska ah ay kaga imaanaysay TV-ga Shabeelle qaybtiisa uu ku leeyahay Facebook-ga ee Shabeelle TV anigoo Zakariya ayaa toos idinku soo tabinayay soo dhaweynta madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland dani intii aynu dib ugu kulmi doono live kan lamida waxaan kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi